xafiiska garyaqaanka guud iyo garyaqaanguleed dafaac oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay cafisku madaxweynaha Soomaaliland u fidiyay ciidanku hogaamiye Colonel Siciid Cawil Caare oo hore uga goostay ciidamada qaranka Soomaaliland ku-xigeenka garyaqaanka guud Xuseen Maxamed Jaamac Balal ayaa ku tilmaamay cafiskaas madaxweynuhu bixiyay mid uu maray hanaanka sharci ee dalka u yaala sidoo kalena xeeran iyo nidaamyo kala duwan leeyihiin ciidamada Soomaaliland isagoo arintaas ka hadlayna wuxuu yiri madaxweynuhu awood buu leeyahay inuu saamaxo wax oo dastuurka awoodda siiyay qodobka 9 farqadiisa 5 ba ayuu saamaxaad iyo u leeyahay iyo afinba tan haddaba ciidamada timid shalay toole oo dad badan ay ka falcelinayeen iyagoo madaxweynuhu awood buu leeyahay uu ka gabanaya horta marka hore arinta laga hadlay waa arin ciidan maaha arin civilian maaha ciidanka iyo civilianka ama shacabkana waxa u dhaxeeya disciplineka u dhaxeeya marka ciidankii uu ka duwan yahay habka loola dhaqmayo sarkaal ciidan oo ka goostay ciidankiisii oo ka soo horjeestay habka loola dhaqmaya iyo waxa la oranayo way ka duwan tahay qof shacab ah sida loo oranayo oo madaxweynuhu kuma degdegayo afintiisa ama talaabada uu ka qaadayo sharciga loo eegaya sharciga ciidanka loo eegaya boqolkiiba 80 runtii way dhamaatay in la sii siyaasadayna deemaba haba laakiin waxa muhiim ah in la fahmo ciidanka iyo shacabka inuu farqi u dhaxeeyo discipline ciidan inuu jiro oo la marayo marka madaxweynuhu isagoo awoodiisa isticmaalaya shalay toole waa kan afiyay qayb kamid ah ama saamaxayba qayb kamid ah ciidanka maadaama ciidanka qayb kamid ah afiyay korneelka iyo kuwa kale la darajada ee meesha ku hareen xeerka ciidanka ayuunba loo eegaya sideedaba madaxweynuhu sharciga kama sareeyo dee sharcigu wuxuu awood u siiyay madaxweynuhu ku dhaqmaya waxa lagu doortayna waa sharci wuxuu ku dhaqmayana waa sharci dee kama sareynayo madaxweynuhu sharciga kama sareynayo marka waxa jirta maamaha Soomaaliya oo tiraahda awrku xamilkiisu muqaaday xadhiga loo ama qaado madaxweynuhuna wuxuu muqaaday xamilkiisa inta awood sharcigu uu siiyay laakiin wax qaloocan ma qaadayo marka arintaas 80% way dhamaatay 20% kana way dhamaan doontaa laakiin waxa loo marayaa channelka sharciga loo marayaa ta saraakiisha arintuna saas ku dhatahay dhankiisa garyaqaanguleed dafaac oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda CBA in badanna ka shaqeynaya arrimaha sharciga ayaa isagu qaba fikirka ka duwan isagoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu leeyahay awood ugu sareysa dalka sidaa darteedna uu ku cafin karo cid kasta sharci ahaan madaxweynuhu awood buuxda u leeyahay inuu cafiyo siyaasad ahaan iyada ma garanayo haddii siyaasad ahaan ama xukuumaddiisa qayb ka mid ah kaga xiran tahay ama qaab hoose oo ciidamadiisa u shaqeeyaan kaga xiran yani siyaasad ahaan awooduhu mar waa siyaasi mar waa sharci siyaasad ahaan ma garan karo laakiin sharci ahaan cid kule ma jirto baarlamaanku lama leh xukuumaddu lama leh maxkamaduhu lama leh cid alla cid la leh madaxweynaha xafiiska ma jirto dastuurku iyagu dadka reer Soomaaliland dastuurka qortay madaxweynaha gaar ugu yeelan Ismaan Axmed Ismaan Saabti Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida